أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك وكرمك يا لطيف. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى: إلهي wuxuu yidhi لaqad kaana lawallaahi qad xaqiiqanimaa kaana waxaa ahaaday lakum idinka idin ahaaday fii rasuulillaah rasuulka ilaahay dhexdiisana idinkugu ahaaday iswatun dayasho taasoo xasanatun wanaagsan liman qof bay u ahaatay dayashadaasi qofkaasoo kaana ahaaday yarjuu mid ka baqaya allaha ilaahay iyo walyowma maalintiina ka baqaya yowmkii alaakhira ee dambe oo wadakara allaha ilaahay xusay kaiiran in badan. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi: walamaa waqtigii ra'aa ay arkeen almu'minuuna mu'miniintu alaxsaaba kuwiisi soo bahaystay qaaluu waxay yidhaahdeen mu'miniintii haadaa midkaani maa shay weeye kaasoo wacadana allahu ilaahay uu noo yaboohay iyo warasuuluhu rasuulkiisu. wasadaqa allaahu ilaahay run buu sheegay warasuuluhu rasuulkiisuna run buu sheegay. wamaa zaadahum wixii ay arkeen uma siyaadin ilaa iimaanan rumayn maahan iyo wa tasliiman hogaansamid ilaahay awaamirtiisa ay u hogaansamaan. min almu'miniina mu'miniintii bay ka mid ahaadeen rijaalun raggaasoo sadaquu ku run sheegay maa shaygaasoo caahaduu ay kula ballameen allaha ilaahay calayhi shayga korkiisa. wa minhum iyagii waxaa ka mida man midbaa ka mida kaasoo qadaa gutay naxbahu nadarkiisii iyo ballantiisii. wa minhum waxaa ka mida man midkaasoo yantadiru sugaya shahaado fii sabiilillaahi uu ku shahiido. wamaa badaluu mana aysnaan bedelinin ballankoodii tabdiilan bedelid liyejziya si uu ugu abaalmariyo allahu ilaahay asaadiqiina kuwa run sheegaya bisidqihim runtooda wayucadiba oo uu cadaabo almunaafiqiina munaafiqiinta in shaa hadduu ilaahay doono ow yatuuba ama uu ka toobad aqbalo calayhim korkooda. in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday qafuuran ilaah dunuubta dhaafid badan raxiiman addoomihiisana u naxariista. waradda wuxuu ku celiyay allahu ilaahay aladiina kuwii kafaruu gaaloobay biqaydihim caradoodii buu la celiyay ilaahay lam yanaaluu xaalaysan gaarin gaaladu khayran khayr iyo muraadka ay lahaayeenoo mu'miniinta dilkooda iyo dhibkooda ah. wakafa allaahu ilaahay wuxuu ka kaafiyey almu'miniina mu'miniinta alqitaala dagaalkii dabayl iyo malaa'iga ilaahay kusoo diray cadowgoodii. wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaadaa qawiyan mid qawi u ah waxa uu idhaadeeyo casiizan haddana qaalib u ah amarkiisa. waanzala ilaahay wuxuu ka soo dejiyey aladiina kuwii daaharuu u kaalmeeyey hum gaalada is soo xisbiyaysatay oo min ahlilkitaabi ahlukitaabka ka mida wa reer bani quraydee min sayaasiihim dhufaysyadoodiiyaa ilaahay ka soo dejiyey. waqadafa wuxuu ku tuuray ilaahay fii qulubihim qalbiyaashoodii dhexdooda alrucba cabsiya argagaxa ilaahay ku riday. fariiqan koox oo kuwii dagaalamayay ah taqtuluuna waad digaysaan wa ta'siruuna waxaadna qafaalanaysaan fariiqan koox kale oo caruurihii ah iyo dumarkii. wa awrathakum wuxuu ilaahay idin dhexalsiiyey ardahum iyaga dhulkoodii iyo wa diyaarahum daarahoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodii iyo wa ardan dhul ardadaasoo lam tada'uuha aadnaan ku joogsan oon weli la gaarin oo aadnan dul istaagin. wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kasta korkii qadiiran mid awooda. yaa ayuha hooya annabiyu nabigow qul waxaad ku tidhaahdaa liaswaajika xaasaskaaga in kuntunna haddii aad tihiin turidna inaad doonaysaan alxayaata noloshii adduunyaa ee dhoweed iyo wasiinataha quruxdeeda
فتعالينا كاليا أمتعكن وإذن راحينيا وأسرحكن وإذن سيدينيا سراحا سيدين جميلا وقرحان وإن كنتن هدياتهن تردن إن الدونيسان الله إلهي ورسوله ورسولك سيود دارتي الآخرة يدنبنا فإن الله إلهي عد وحود ياريا للمحسنات قبلها وناقة سمعيا ومن كنا إذن كإذن كمدا أجر كاسو عظيما وين يا نساء النبي دمر كيسو من قفك يأتي لي ماذا ومن كنا إذن كإذن كمدا بفاحشة خصلتي فالحماد مبينة تاسو فاحشة مبينة اسكعد يضاعف الله لمن لاب يالها يدي العذاب عذابك ضعفين لمن لاب وكان وحنا هذا ذلك كاسي يسيرا متفضد على الله إلهي كل سنة وفضد ومن غفك يقنط الضيعة ومن كنا دين كمدا لله إلهي ورسوله رسول كيس وهو تعمل عمل فشا صالحا عمل ونكسا نؤتها وحنسينينا gabadhaas ajraha ajarkeeda maratayn laba jeer waactadnaa waxaana u diyaarinaa lahaa iyadii mudiicada risqigaasoo kariiman wanaagsan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa nisaa annabiyi nabiga dumarkiisow lastunna idinku ma tihidin kaaxadin qof oo kale axadkaasoo min annisaa'i dumarka ka mid ah in ittaqaytunna haddaad idinku dhowrsataan فأجركن أعظم أجركين وويه فلا تخضعن وجل عننا رجع بالقول هذا الك وفيدمع دمعه الذي كي في قلبي مرض منافق نمو يكجرتي أو مركز أو دمعه الفجور فجر نمو وقلنا وحاتكو غوشان قولا هذا الكاسو معروفا وناكسا وغرنا كنا قاعدة في بيوت كنا قريهن دحدودا ولا تبرجنا قرح دينها أم جننا رقا تبرج الجاهلية تبرجا موجنا وكتبرج الجاهلية جاهلية سيد قرح الدمر كون مججرينا جاهلية ديالو لا يهري وأقمنا أوقع الصلاة صلاة وياتينا بحيا الزكاة واضعنا أضيع الله إلهي ورسوله ورسول كيسا إنما يريد الله إلهي وحدون ليذهب إنه كالتكسي عنكم حقنا الرجس دنبقا أهل البيت يا أهل البيت أهل بيت كنبقوا وهو يظاهركم وإذن كظاهره تظهيرا ظهيرد واذكرنا حسن ما شيء كاسو يطلع لقوا آخرين في بيوتكن قريهن لحدوده كاسو من آيات الله إلهي آياته سقران كأه والحكمة سنة نبيك وأحاديث تيه إن الله إلهي كان وحوى هذا لطيفا مثل مريا خبيرا وهدنا وقدومها أمورته ظاهرا وباطنا قال تعالى إلهي وحير إن المسلمين رقه جانسا والمسلمات دمركه جانسا والمؤمنين رق حق رميي والمؤمنات قبلها رميي حقه والغانتات قوة أضيعسن إلهي ورقا والغانتين رقا الله أضيعسن والغانتات قوة دمركاه إلهي أضيعسن والصادقين نمن كرون تشيغيه والصادقات دمر كرون تشيغيه والصابرين نمن كوات كيسانيا أتكوات كيسانيا والصابرات دمر كات كيسانيا والخاشعين رقا خشوعيا والخاشعات دمر كخشوعيا والمتصدقين رقا وحصدقي سنيا والمتصدقات دمرك وحصدقي سنيا والصائمين رقا صومن والصائمات دمرك صومن والحافظين رقا حفظين يا فروجهم فرجيا شودا والحافظات دمرك يقون فرجيا شودا حفظين يا والذاكرين رقا حصيا الله إلهي كثيرا انبضا والذاكرات دمرك يقون انبضا حصيا إلهي أعد الله إلهي وحودي ياري اللهم دتك صلى الله عليه مغفرة ذنب داف وأجرا أجر كاسو عظيما وين غزوة الأحزاب هي منافقين تا موقف كودا يدي هورنا لو كاغا شيكيي هل كان إلهي سبحانه وتعالى وحنوغا شيكينيا
oo macna wuxuu amrayaa waayadahan ilaahay ku amrayaa muuminiinta inay nabiga ku daydaan sallallahu alayhi wasallam iyo inay jihaadka la galaan iyo sabarka nabigu sabrayo diinta islaamka faafinteeda in dadkuna ay maaragtay uga daydaan haddana wuxuu ka sheekaynayaa quraanka kariimka ah ummahatul muuminiin xaasaskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo iyagana dhinacooda laga faray inay ku daydaan rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam waxay uga dayanayaan zuhdiga inaysan u hanqal taagin adduunyada maxaa yeelay iyaguna waxay qudwa u yihiin oo ku dayanaya dumarka kale لما ذكر تعالى إلهي مركو حسين غزوة الأحزاب دولانكي غزوة الأحزاب لديه جري وإصابها يستان قالضو وموقف المنافقين يا منافقين تم كانوا يستاقوا موقف كودي المذبذبين نغنغون ييو قال دي مسلمين تباو نغنغون يي بالقعود فردي أي كفر يستان عن الجهاد كي حقيسة موقف كوداها هي وتثبيط العزائم كوا قوان صدين دغالك قلان ريبيدو دا جهادك كريبيين مركي الله نوصو شيغي 10 كي هوري أمر إلهي وحفر المؤمنين في هذه الآيات آياتان دحدود بالاقتداء إني كضيدان بالرسول الكريم رسولك وناكسا في صبر أتكيسمين سيقضيانيان وثباته سقنان شيسا وتضحيته نفتي سبحين تادا وجهاده جهاد كيسا ثم مركز كذا جاء وحي مدى الحديث كشاكين عن زوجات رسول الله إلهي رسول كيسا حساس كيسا لغا شاكين صلى الله عليه وسلم زوجاتك الظاهرات الظاهراء وأمرهن إلهي زوجاتك نبي وحو أمري بالاقتداء إن يكون أيضا برسول الله إلهي رسول كيسا صلى الله عليه وسلم في زهده زاهد نمدي سيقض أيضا وعدم تضلع إنسان أهنقل تاجن إلى زهرة الدنيا دا دلال كذا لأنهن زوجاتك نبي صلى الله عليه وسلم قدوة ضيشي وحيويهن لسائر النساء المؤمنين تدمر كذا صاحري قال تعالى إلهي وحيري لقد كان لا والله قد حققني ما كان لكم أدينك وحيدين كوا هذا في رسول الله إلهي رسولك سلحلي سيسوة ضيشو تاسو حسنة وناكسن قدوة حسنة إخلاصك إي جهادك إي صبرك لما والله ضيانا يا نبي عليه الصلاة والسلام وعواجب نقوه إن لقو ضيضه في جميع أقواله وأفعاله وأحواله إلا وحي شرعه كسو أروري إن نبي خاص طهي ماهاني لمن قف أيا ضيشدو سقناتي لكم تهرى لقى بدلي يا جاري مجرور لقى بدلي وي لمن قف ضيشدو سقناتي قف كاسو كان هذا يرجو أي يخاف متكبغ يا الله إلهي واليوم يومك الآخرة يا دنبه وذكر الله إلهي حسي كثيرا إن بضن عربك يا قلبك انت بك حسي إلهي سبحانه وتعالى أيضا وحكفر يا ضدك إن نبيك كضيضان صلى الله عليه وسلم نبيك كضيضان يا إلهي فريا ووحد وين قال تعالى إلهي وحي المؤمنين صادقين تهي أو إيمان كودو ربط أهاي غزوة الأحزاب markay arkeen ciidamada faraha badan ee soo bahaystay mowqifkii ay muuminiintaasi istaageen yaa haddana naloo sheegaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walamaa waqtigii ra'aa ay arkeen almu'minuuna kuwii ahlu iimaanka ahaa alaxzaaba isbahaysatadii markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkaani maa shay weeye kaasoo wacadana allaahu ilaahay uu noo yaboohay wa rasuuluhu rasuulkiisuna uu noo yaboohay oo maaragtay in la imtixaanayo kadibna cadawgeena loo kaga gargaaraya wasadaqa allahu ilaahi rumbu sheega ballantiisa runuu ku sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisuna wuxuu noogu bishaareeyay yoorunku sheegay sidaas yay yiraahdeen wama zaadahum qala ta'ala ilaahi wuxuu yiri wama zaadahum iyagii uma ziyaadin wixii ay arkeeni illa iimaan maahan inay sii rumeeyaan iimaan qawiya ilaahi rumeeyaan wa tasliiman iyo hoggaansamida isu dhiibaan ilaahi awaamirtiisi sidaas ay noqdeenoo gaaladii cabsi gelintoodii kuma cabsan muuminiintu ee waxay ka qaadeen iimaan hor Allah iyo kalsooni ay ilaahi ku kalsoon yihiin subhanahu wa ta'ala min almu'miniina dagaalkii markii la galay natiijadu sidaanay noqonaysaa min almu'miniina muuminiinta ayay ka mid ahaadeen rijaalun raggaasoo sadaquu ku run sheegeen oo ka dhabeeyeen maa shaygaasoo caahadullah ilaahay ay kula ballameen calayhi shayga korkiisa
yacni waxay nadreen haddii ay dagaal soo haleelaan rasuulka iyagoo la jooga inay sugnaadaan oo ay dagaalamaan ilaa ay guulaystaan ama ay shahiidaan tiyayna ka dhabeeyeen sadaquu maa caahadullah calayh nadarkoodii waa ka rumeeyeen faminhum iyagii waxaa ka mid ah marka man qofkaasoo qada gutay naxbahu nadarkiisii ama ballantiisii oo dagaalkii ku dhintay anas ibnu nadri iyo xamza ibnu cabdilmudalib iyo raggaasaa ka mid ahaa wa minhum waxaa ka mida man midkaasoo yantadiru sugaya ashahaadata fii sabiili illah mafcuulkiia go-aanay shahaada inuu shahiid ku noqdo jihaadkaas dhexdiisa wamaa badaluu mana aysnaan bedelin ballantoodii tabdiilan bedelid liyajziya si uu ugu abaalmariyo allahu ilaahay asaadiqiina kuwa run sheegaya bisidqihim bisababi sidqihim runtooda sababkeed axsan la jazaa inuu ilaahay ku abaalmariyo aakhiro wayucadiba uuna cadaabo almunaafiqiina munaafiqiinta in shaa hadduu ilaahay doono ow amase waa hadday ku dhintaan munaafiqnimadee ow amase yatuuba ou ilaahay ka toobad aqbalo calayhi munaafiqiinta korkooda hadday ka toobad keenaan oo sidaas ilaahay ugu naxariisto in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday ghafuuran mid daafid badanoo maqfiradiisu waasic tahay raxiiman haddana addoomihiisa u naxariista warad allaahu aladiina kafaruu bigaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allahu lmuminiina alqitaala wakana allahu qawiyan casiiza aayadahani waxay ka hadlayaan isbahaysatadii inaysan ku guulaysan laa fi dunya walaa fi laakhira himadoodii iyo ulajeedadoodii midna inaysan ku guulaysan muminiintana ilaahay subxaanahu watacaala uu quweeyeyoo malaa'igtiisa iyo junuud kale oo aanan arkin uu ku quweeyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waradda wuxuu celiyey allahu ilaahay aladiina kuwii kafaruu gaaloobay biqaydihim caradoodii buu ilaahay la celiyey duulaanka ay soo qaadeen kuma aysanan guulaysan lam yanaaluu xaalaysnan gaarin gaaladu khayran khayr adduun iyo aakhiro midna dembi bay kasbadeen rasuulka ilaahay ay ka hor yimaadeen oo ay isku dayeen inay dilaan iyay dembi ku kasbadeen mana guulaysan wakafa allaahu ilaahay wuxuu ka kaafiyey almuminiina muminiinta alqitaala dagaalkii dabayl iyo malaa'iga ilaahay ku salladay ilaa ay carareen iyagoo jabay gaaladii wakaana allahu ilaahayna wuxuu ahaadaa qawiyan mid xoog leh oo maaragtay u qawi ah calaa maa araada wuxuu doono oo cid ka laabi karta aysan jirin casiizan haddana qaalib u ah amarkiisoo cid qasbi karta ama ka guulaysan karta aysan jirinin sidaa darteed nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa ilaaha ila allahu waxdah nasara cabdah waacaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah laa ilaaha ila allah ilaaha xaqa maahan ilaah kale ma jiro waxdahu munfaridan xaaluu yaha keligii nasara ilaahay wuxuu u gargaaray cabdahu addoonkiisii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam waacaza wuxuu ciseeyey ilaahay oo u sharifay jundahu ciidankiisii wahazama wuxuu jebiyey alaxzaaba isbahaysatadii waxdahu xaaluu yaha keligii ilaahay waanzala ilaahay wuxuu ka soo dejiyey aladiina kuwii daaharuu u kaalmeeyeen hum mushrikiinta oo ballantii buriyey oo nabiga iyo asxaabtiisa ka hor yimid waa reer bani quraydo ilaahay wuxuu ka soo dejiyey min sayaasiihim dhufaysyadoodii waqadafa wuxuu ilaahay ku tuuray fii quluubihim qalbiyaashoodii dhexdeedana arrucba argagax iyo cabsi ilaa dhufaysyadoodii la furtay oo iyagu ay isdhiibeen wuxuu yidhi ibnuuljazi nasalat haadihi alaaya aayaddani waxay ku soo degtay fii yahuudi bani qurayda yahuuddii reer bani quraydo wadalika annahum kaanuu waxay ahaayeen mucaahidiina kuwa la ballamay lirasuulillaah sala allahu aleh wasalam fanaqaduu cahdahu ballankiisii ay buriyeen wasaaruu waxay ahaadeen maca qurayshin reer qurayshtiisa maka ka soo duushay la safteen falama nhazama almushrikuuna gaaladii markay jabtay wansarafat qurayshun qurayshina ay ka gadoontay can ilmadiinati magaalada madiina xaasara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu hareereeyey bani qurayda xataa nazaluu ilaahay kusoo degeen calaa xukmi sacd bni mucaad
فحكم مركز سعد وحكو حكمي بأن يقتل إن الله رجالهم رجود دجالمية ويصبح لقفاشو نساؤهم دمر كودا وذريتهم عرور تودا من صياصيهم دفيسيدو دا إلهي كسودتشيه وغذف في قلوبهم الرعب قلوب تودا عبسية إلهي قليه يرقق حضرا فريقا كوح كمدا ورقي دجالمية تقتلون ودليسان 800 إلى 900 ay u dhaxayeen raggoodii la laayay wa taasiruna wad qafaalanaysan fariiqan koox oo dumarkii caruurtii ah wa awrathakum wa hukumki Sa'd ibn Mu'adh oo ku xukumay wa awrathakum wuxuu ilaahay idin dhaxal siiyay muuminiintow ardahum dhulkoodii reer bani Qurayda dhulkoodii maguurtadoodii wa diyaarahum iyo daarahoodii wa amwaalahum iyo xoolahoodii ay ka tageen intaasoo dhan yaa muslimiinta ilaahay ku wareejiyey wa ardan dhulna ilaahay waa idin dhaxal siiyey ardadaasoo lam tada'uuha adnan ku joogsan weli oo adnan lugtiina dhigin waa Khaybara oo kasii dambaysay Qurayda iyo meel kasta oo muslimiintu ay furtaan muddadaas kadib وكان الله إلهنا وحو هذا على كل شيء شيء كستكركس قديرا مد أوده وعد عجز قال كرتاه سنجرين لا في السماء ولا في الأرض قال تعالى إلهي وحجر يا أيها هو النبي نبيغو قل وحاد كتر هذا لأزواجك حاسس كاغا إن كنتن هدياتهن حاسس يهو تريدنا إن دوني سنة الحياة نرشي الدنيا يدويت وزينتها نلشاس قروح ديدا فتعالينا كاليا ومتعكن وإذن راحين يا متعة الضلاق عن إذن سينيا وصرحكن وان إذن سيدين يا صراحا سيدين جميلا وقرحان وإن كنتن هدياتهن تردن إن دون إنسان الله إلهي رضيه سي ورسوله ورسول كيسبا يودار دارتي الآخرة يدن بيسين الليبانتان فإن الله إلهي عد وحود دياريا للمحسنات قبلها وناقة سمية ومن كنا إذن كميضة يا إلهي وحود دياريا أجر كاسو عظيما وين إحسان كاي سميان يا ثواب وين إلهي سبحانه وتعالى أو ديارنا يا وثواب أن ماركتي أن بني آذن أرك لك بني آذن مقل قلب بني آذن أنكو صادعين وياهي وعيري قال في البحر لما نصر الله نبيه مركي إلهي نبي سو غرغاري وفرغوا ككل الدري إلهي عنه نبي حقي سال أحزاب أسباهي ستدي وفتح عليه نبي كركيس إلهي أفري قريضة والنظير لبضعس قبيله يهود كم دهد مدينة ظن وحيوم لين أزواجه نبي حاسسكيس أنه نبي اختص إنه لقار نقض بنفائس اليهودي يهود وحيوي ونكسنا يهيستين وذخائرهم يكيد يشودي فقعدنا حوله مركز النبي ريحيس صوفريستين وقلنا وحير هذا يا رسول الله إلهي رسولك سو بنات كسرى وقيصر بغرك فارس يمتك الروم قبله في الحلي بالذي كسجين والحلل اسكو معني ونحن نقونا على ما شيء كركيسن كسجنا شيء قاسو تراه آذار كيسيد ومن الفاقة فقرقة والضيق عريرقة وآلمنا وحيكو حنوشيين قلبه نبي قلبي بمطالبتهن له نبي إنك طلب يام بتوسعة الحال حال كينو واسعيه وأن يعاملنا إنه كل يعاملهن إنه كل معامله بما يعامل به الملوك بغرض وحي كل معاملان يولا كبير كوا ووين أزواجهم حاسس كودا فأمر الله إلهي وحو أمري أن يتلو إنه كوا أخري عليهن حاسس كنبي قد شودا ما نزل في أمرهن وحي أمر كيس كسو جاي وأزواجه نبي حاسس كيسنا إذ ذاك وقت قصايده سودجين 9 زوجات سقالة أحيان سبب نزول كآيات سداسوي قال تعالى إلهي وحجر يا نساء النبي نبي حاسس كيسو دمر كيسي من يأتي مد الله تمادوا من كنا دين كيدين كمدا بفاحشة فاحشة تاسو مبينة عطف دم بعد وفاحشاه مغضة
cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa annushuus wa suu'u lkhuluq naashiisnimo iyo dabci xumo yudaacafna waa loo laban laabayaa lahaa gabadhii la timaada faaxishada mubayinada alcadaabu cadaabka loo laban laabayaa dicfayni laban laab wakaana dalika kaasina wuxuu ahaaday ciqaabkaahi yasiiran mid u fudud cala allahi ilaahay korkiisa oo cid ka mancin karta ayaysa jirin waman yaqnut midii gabadhii adeecda oo minkunna idinka idinka mida lilaahi ilaahay adeecda iyo warasuulihi rasuulkiisa oo watacmal camal fasha saalixan camal wanaagsan nu'tiha waxaan siinaynaa iyadii ajraha ajarkeeda maratayni laba jeer maratan cala daaca والتقوى ومرة على طلبهن رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقناعة وحسن المعاشرة واعتدنا وحن ديارنا لها يدي وحن ديارني رزقا رزقا كريما وناكسا ورزق جنة يا نساء النبي نبي دمر كيسو لستن أدنكم متي دينك أحد غفوك له أحد كاسو من النساء دمر ككمدة من جهة أن كنا أفضل وأشرف من غيركن ويهي محيا لي خير خلق الله حاسس كيسي ويه نبغانونا خلق قدن وفضل بدن يهي إن اتقيتن هذا الدور ستان ودلاهي كبغضان فأنتن بأعلى المراتب أدينكو عادكو سوغندين درجوين ككوا وسرية فلا تخضعنا هوجل عننا رجع بالقول هذا لك أمرك الله ليسان أو فيضمع أو فاجر دمعه الذي كي في قلبي مرض منافق نما يكجرته نفاق وقلنا قولا هذا الكاسو معروفا شرعي يقانه وقول دورسا وأن ريبه يمن كيني كرين أن لوجل عن رجع أجانبتا عتكا وقرنا كنا قادا في بيوتكنا قريهن كنا قادا أو سميننا ودوين كوحيكو سمينيين نقاحن ولا تبرجنا وروح ديننا هاوصو موجننا رقا تبرج الجاهلية كتبرج الجاهلية جاهلية موجنتو ديو كالي جاهلية ديالولا اخرى دمركو وحي موجيجرين وروح دودا اي موجيجرين waxaan la faydo aan la ogolayn oo jirkoodana waa faydi jireen waa banaaniyay jireen arintaas ayaa maaragtay laga waaninayaa way waaqimna ooga as-salaata salaada wa aatina bixiya az-zakata zakada qaybtana waxa lagu faray inay xifdiyaan salaada zakadana ay iyadana bixiyaan marka hore ilaahay shartu ka nahiyay nabiga xaasaskiisa sallallahu alayhi wasallam markaan dambana khayra ilaahay faray oo salaada oogideedii la waa cibaadadii cajiibka ahayd oo cibaadaadka ugu fadliga badneed iyo zakada bixinteedii oo iyaduna ah al-ihsaanu ila al-makhluuqin makhluuqaadka in loo wanaag sameeyo waadicna adiica allah ilaahay iyo warasuulahu rasuulkiisa awaamirta iyo nawaahida dhammaan ku adeeca markaas darajatul muttaqiyaat gaaraysaane إنما يريد الله إلهي وحدون يا ليذهب إنه كتكسي عنكم حقنا الرجس ذنبك أهل البيت يا أهل البيت إنما ذا قرق يا أهل كيسو ويظهركم وحونا إذن كالظهير يا إلهي ذنبك تظهيرا ظهيريد مع سيدة يدنوبتا إلهينا إذن كالظهير يا وآد تدو نصيب بضن وإلهي سبحانه وتعالى وهل كان كعدي إنه إلهي دنس المعاصي وأوضار الذنوب إنه إلهي كالظهير سبحانه وتعالى كان دوري واذكرنا حصة ما شيء قاسو يطلع لغو آخرنا في بيوتكن قريهن ومن آيات الله إلهي آياته ساه والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قال لي بانته هي ما ركتي نقوش ويكجرتاه وحو إلهي حسوسية سبحانه وتعالى حاسسك النبي صلى الله عليه وسلم قريه دوينيهين ماشا وحيو كسو دقو مركا وحو أمرين سن اللوبين أخرس كاي كتابك إلهي أخرين أيان هي قرآن كريم كا
يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصل لقي شريعة الإسلام القرآن والحديث. إن الله إلهي كان وحو هذا لطيفا مدول مرين بدن الدوميه خبيرا شؤون تدرن أك وظاهرا وباطنا إلهي وأقياه سبحانه وتعالى. آيات إن وحيت الماميسا رجع يدمركو أبال مرينت إن يكون سنيهين وقف والباب وحا أولي ما هدوني هاي هدون ناقي هاي لغو أبال مرين أيوه مرك رجي وناك سنا يدمركي وناك سنا واسكو أبال مر أن كوا حننا يجون أبال مر كله أو إسلامي ده هو حن أي هليان مرك ثوابك أجرك إن رجي يدمركو إسكال مدينة آيات الماميسا. قال تعالى إلهي وحيرنا المسلمين nimanka hoggaansan iyo wal muslimaati dumarka hoggaansan waa ragga iyo dumarka ka akhlaaq yeeshay akhlaaqda wanaagsan oo diinta islaamka amarkiisa u hoggaansamay wal mu'miniina kuwa rumeeyay ilaahay aayadihiisa iyo wal mu'min ragga iyo wal mu'minaati dumarka iyaguna rumeeyay wal qaanitiina kuwa adeecsan ilaahay oo ragga iyo wal qaanitaati dumarka adeecsan والصادقين رجع رنت شيء يا والصادقات دمر كرنت كشيء يا إيمان كودا ينيدودا يا هذا الكود يعمش هذا بقى. والصابرين رجع وات كيسنا يا ضاعدا كانت كيسنا يا معاصدا وات كيسنا يا مصائبتا يا والصابرات دمر كيجون سدوا كلا. والخاشعين رجع خشوع سنة والخاشعات دمر كخشوع سنة إلى درته خشوعه. والمتصدقين نمنك حوله صدقي سنة يا والمتصدقات دمر كحوله صدقي سنة يا ووجك حلاشة كبحين يا. والصائمين نمنك إلهي درت أصوما رمضان يا غير كبا يا والصائمات دمر كيجون سدوك لأصوما. والحافظين رجع حفظين يا فروجهم فرجيا شهدا حرامته يا دنبقة يا وحي عن حلال هين كحفظين يا iyo walxaafidaati dumarka iyaguna furuujtooda ka xifdinaya sidaas wadhaakiriina kuwa ilaahay xusaya allah ilaahay kathiiran in badan oo ragga ah oo carabka iyo qalbiga iyo waqtiyadoo dhan iyo amaakintoo dhanna ku xusaya wadhaakiraati iyo dumarka sidoo kale ah acad allahu ilaahay wuxuu u diyaariya lahum iyaga maqfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajarkaasoo cadiiman weyn. dadkaas mutaqiinta oo abraarta oo sifaadkaas waaweyn ku sifoobay oo rag iyo dumarba leh ajarkooda iyo thawaabkoodu waa weyn yahay waa janno iyadoo dunuubtooda la dhaafayo acmaashaas wanaagsan oo ay la yimaadeen darteed yaa ilaahay jannadiisa gelinaya subxaanahu wa tacaala. allahumma ijcalna minhum wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.